عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد يوتيوب كني عابي تكنولوجيا في الانستيتيوت. هلا waxaan ugu barataan culuumteeni ku bixi jirtay luqadda af Soomaaliga. waxaan halkan ka sii wadnay barnaamijkeeni loo yaqaanay Access Database inagoo casharkeeni koowaad ku soo qaadanay sida database loo sameeyo. casharkeeni labaad waxaan ku soo qaadanay sida table loo sameeyo. casharkeeni saddexaad waxaan ku soo qaadanay sida filter lagu sameeyo iyo waxaan ku soo qaadanay sida maxay loo sameeyo form. casharkeeni afraad waxaan ku qaadanaynaa sida maxay loo sameeyo relationship. relationship wuxuu yahay relationship waxa weeyaan tables badan oo is khuseeya ayaa la isku xidhaya. sida isku khuseeya dhowr shardi waa inay iska matalaan ama dhowr shardi waa inay maraan. shardiga koowaad wuxuu yahay tablekaasi imika tablekeennani tusaale waa smart information. waa ardaygii magaciisii aabihii magacii waalidkii awogii adresskiisii genderkiisii waxyaalaha. imika kale markaan tablekan ku xidhayno waa inaan ku xidhnaa tableka loo khuseeya. imika kale table la dhaho student view. ardaygii muxuu ka koobnaanaya tablekaasi section lacagtii ardaygaasi bixiyay fiigii balansigii hadduu doono hadhaagii lagu lahaa galaaskiisii waxyaalahaas oo dhan waa is khuseeya. laakiin haddana imika student informationka iyo table kale loo yaqaano teachersku ayaan isku xidhaynaa isma khuseeyaan. shardigaas waa mid. shardiga labaadna waxa weeyaan labada table aad isku xidhaysa waa inay ka siman yihiin ugu yaraan hal kalo. imika kale keenan markay soo sameynay halkan waxaan ka soo dhiganay auto number. imika waxaan ka dhiganaa maxay number caadi aynu ka dhiganaynaa. waayo waxaan doonaynaa barnaamijkan inaan u bixin ID-ga inaan inagu siinayn doonayna. saasaan ku save garaynayaa right click baan leeyahay. tusaale maxaan uga jeedaa oo number uga dhigaya imika kale jaamacado ardayga iyagaa siiya ID-ga. lacagta markaad bixinayso semesterka ID-gaaga sheeg baa lagu dhahaa. ID-gaaga sheeg marka lagu dhaho halkaasuu kasoo boodaya. marka barnaamijka marka laba table la isku xidhayo waa inay ugu yaraan ka sinaadaan baan ku dhahay hal kalo. waa kow halkaa ID-guna waa inaad number ka dhigtaayo ID-ga waa inaan inagu bixinaa. haye haddaba imika maxaan kala sameynaya waxaan sameynayaa tableka khuseeya. markaan table sameynaya waxaan leeyahay table design waxaan leeyahay student ID waxaan ka dhigayaa number waayo waxaan isku xidhayaa kii kale student name iyo waxyaalahan waan ka tegaya oo tableka kale ay noo haya. waxaan kale ka dhigayaa student class waxaan leeyahay shortiga iska awdaa. waxaan leeyahay student maxay section taybku geli jiray shortiga iska awdaa. waxaan leeyahay amount fee xaddiga lacagta ardayga la bixinaya ama ku dhigto meesha waa currency baan doonaya. waxaan doonaya calaamadii dollar sign ku inay raacdo. waxaan odhanayaa balance ardaygan hadhaa waayo de lacagta wax laga yaabaa inuu kala bar bixiyo hadhaaga wixii de hadhaagiina waa in lagu yeesho weyn haddii inoo soo baxda currency baan iyadana u doonaya. waxaan odhanayaa paid date xilligu lacagta bixiyay iyadana waxaan u doonayaa date aan tahay. haddaba waxaan doonayaa ID-ga inaan ku xidho primary key waayo inaanu ID-gan mar bixinaa mar labaad aanay nagu soo noqon ayaynu baahnaa. tablekan dul tegayaa close baan leeyahay waan save garaynayaa. waxaan u bixinayaa student view baan u bixinayaa enter baan leeyahay. wakaalka ay soo galay student view smart wakaalka ay soo galay. haddaba aynu tagno tablekeeni student informationkii imika Axmed Maxamed Jaamac ardayga la dhahay lacag ka qabanayna muxuu sitaa ID1. waxaan odhanaynaa Axmed oo ID-ga sita galaaskiisu waa 4pm section ku dhigtaana waa section X lacag wuxuu bixiyaa $12 baa laga rabo $3 baa ku harsan. date ku bixiyayna waa 1 bisha. waan ka soo noqonay arday kale lacag ka qaban. waxaan ka qabanaynaa Muna Axmed Jaamac oo sita ID-ga 4. waay waxaan odhanayaa Muna ID-ga inay kala horeeyaan wax micno sheegi mayso. Muna waxay dhigataa maxay 5pm section keeduna waa D lacagtay bixisay waa $14 waxaa lagu leeyahay $1. date-kii lacagta bixisayna waa labadii bisha. arday kale lacag ka qabanayna waxaan ka qabanaynaa Cabdisalaan oo sita maxay ID-ga 6. waxaan odhanayaa Cabdisalaan ID-giisu waa 6 wuxuu dhigtaa 6pm lacag sectionkiisu waxa weeye section A lacag wax laga rabay $15 balancekiisu waa 0 waxba laguma leh. date-kaas qorano lacagta bixiyay. arday afraad aan lacagta ka qabano waxaan odhanayaa Xamse Jaamac Ogli
wuxuu dhigtaa waa ID-ga wuxuu sitaa 5 waxaan odhanayaa xamsi ID-giisu waa 5 halkaasaan gelinayaa wuxuu dhigtaa 4 PM sectionkiisu waa section G lacagta waxa ku dhigtaa waa $12 buu $15 wax ku dhigtaa 12 buu bixiyay saddex baa ku harsan date ku lacagta bixiyayna waxa weeyaan maxay 6 bisha way aan save garay close baan leeyahay aan save garaynayaa tan ay save garay haddaba halkaas waa casharkeenu inoogu bilaabmaya su-aashan isweydiinayna waxay tahay relationship muxuu soo kordhinayaa relationship wuxuu soo kordhinayaa inagoo table-keena joogna ayaynu ku ogaanaynaa imika ardayga inagoo table-keena joogna ayaynu ku ogaanaynaa ardaygaasi wuxuu lacag bixiyay class-ku ahaa section-ku ahaa date-ku lacagta bixiyay isla fahnaan u malaynaya si aan haddaba u sameeyo relationship waxaan tegayaa maxay database tools baan tegayaa relationship baan leeyahay relationship markaan dhaho waxaan odhanayaa maxay student information kanaan kasoo xidhayaa kan iga delete kare imkaan sameynayaa mid horaan kusoo xidhay ayuu ii sheegayay relationship waxaan odhanayaa tableka markaan labada table isku xidhay waxaan tegayaa kow database tools baan tegayaa waxaan odhanayaa relationship markaan tago tablekii waa kaa kow kii koowaad kii aan ku xidhayaana waa kaa labada table baan doonayaa isku xidho midna waa student information midna waa student view maxaan kala soo nir shuruudii maxaa kamid ahaa in labada table hal column ay ka siman yihiin iminka labada table waxay ka siman yihiin student ID iyo student ID isla garana student ID gaan dul tegayaa student ID gaan ku xidhaya create baan leeyahay iminka labada table waa kuwaas ku xidhan isla garana waan iska soo xidhayaa aan tegayaa student baalkaygii informationkaygii iminka ardaygaa loo yaqaano ay Axmed Maxamed Jaamac oo October ka soo kaca mail ah waxaan doonayaa inuu lacagtii bixiyay in kaliya hadhaagi lagu lahayn aan ogaado maxay noo soo kordhay pluska ku dhufo iminka maxaa la yidhi Axmed waa 4 PM sectionkiisu waa egas lacag wuxuu bixiyay 12 waxa lagu leeyahay $3 xilligu lacagta bixiyayna waa maxay waa kowdii bish way aan ka noqdo xamse aan tago ardayga wuxuu sitay ID-ga 5 waxaa la xamse jaacogle wuxuu xaafadda October degan yahay aan tago haddaba ardaygaas maxaa la yidhi wuxuu dhigtaa galaaskiisu waa 4 PM sectionkiisu waa G lacag wuxuu bixiyay 12 maxaa lagu leeyahay $3 xilligu lacagta bixiyayna waa maxay waa 6 marka relationship wuxuu soo kordhinayaa laba table inay isku xidhno labada table oo isxuseeya kadibna tableska kale ee isxuseeya inaynu kala socon karayno ka kale halka aynu joogno iminka table student view waa kan ku xidhnay isla garana student hadda kan kala soconay inagoo aan joogin student view-ga oo joognay student information-ka waa kan iminka eeg ardayda munaan ku dhufanayaa maxaa la yidhi waa 5 PM bay dhigtaa sectionkeedu waa D lacag waxay bixisay 14 waxaa lagu leeyahay $1 dheedkii bay lacagta bixisay $2 marka casharkeenaas insha Allah intaas inuu eegyahay wixii feedback ama wixii tala ama wixii aad garan weydo waxaad nagula soo wadaagaysaan barteenaan ku leenahay Facebook ama Instagram ama Twitter-ka ama TikTok-ka awil caabi 212@gmail.com casharka share gareeyay si asxaabada nu gaadho waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.